beesha sade iyo beesha cayro badan wada degtay warreer jooga warreer alihi allamay wala shahaata warboodna islaan hayn warboodna aqoon hayn waraaba culimadiini iyo aqoonyahankiini iyo waasiyadiini iyo dadkiini meeye waa wada ehlunaar kan dhaawaca oo gurcool yaalla ilaa waraysin kan caabud la geeyay ama alamar yaalla ilaa waraysin hasiidooda kan kale basiiba ku noqota xamaday ku riday hooyaday waa naag gabar reer dara oo reer cabdulla alla magana aabay waan reer yaalla oo reer wehel dheera midkaana wax ugu tari maayo maanta waxna uguma aalo abtigay baa la dilay abtigay baa la dilay habartay baa la uleeyay hooyaday baa la garbaashay wallaahi billaahi tallahi yoonka maanta waa qamiisteeda ka soo ka hor haddaan maqli waayo waa heshiiyeen haddaan qodo kala degin bugog layma yidhaahdo inta aad degtaan haddaan qoon kala degin bugogba layma yidhaahdo joojiya dagaalka gurmadka joojiya waxay u geysan karaan kulligoodba waa la weya xasharaad kale ceeshay ka cabayaan waa wada walanayaan maryahay dhiganayaan buuray ku furayaan waa ka xoog badan meel kasta magacoda ii jiifaa weli siima dayn soo maqli maysid gunaha shaabaan uga kiciyey haddaa la joogaa warreer jooga warreer alihi allamay wala shahaata warboodna islaan hayn warboodna aqoon hayn waraaba culimadiini iyo aqoonyahankiini iyo waasiyadiini iyo dadkiini meeye muuqaalka ayaana meel kasta hala gaarsiiyo ina islaam wixii hala gaarsiiyo wixii galguduud dhashan hala gaarsiiyo gobolada hala gaarsiiyo hala sheer gareeyo aniga magacayga maxamed axmed magooga la yidhahdaa adduunku waxa weeye wax irmaa galguduud waa layga yaqaanaa galguduud waa qof loo yaqaan baa waxaan saaka la hadlayaa labada qolo oo dhigta balambal labada nimanka la yidhaahdo cayr iyo mareexaan allahood alla hadday dagaalkaa naga joojiyaan dagaalkaa joojiyaan ha heshiiyaan diinkaa dhaxali maayaan oo diin ku dagaali maayaan oo dalkala furan maayaan oo waa isku aakhira seegeen war waa isku aakhira seegteen oo waa isku adduun seegteen oo waa isku toobad seegteen oo kii dhintaa waa ahlunaar oo ka nooli waa ahlunaar islaan haddaad tihiin oo ashaataan oo labadaas qabiil oo weliba beesha sade iyo beesha cayro badan wada degtay allihiin haddii yaa leeyahay dhulka dhiigga nooga daaye oo cadowtooda naga daaye oo colaadda iska daaye 15 sanaad geeda ku jirtaan ninka macaashay nin walbow ninkii maalin gelinkeed macaashka helayo war noo sheeg annaga na tus waxaad ka faa'iidana tus midkii dhintana waa ahlunaar kan noolna waa ahlunaar ilaahayna roobkiisa waa idiin diidi risiqiisa waa idiin diidi ummaddii waa ka harteen in qof kale idin imaan adinkaas reebay allihiin alla hadduu yahay dagaalka naga daaya waa inuu ka qayb galaa oo kala joojiya haddii la waayo kama ciidan yarin waxaan loo jeedin oo carfiin la yihahdo adeegsanayna qoon kalaa degaya meeshay degi jireen gurcaal iyo balambal inta ka dhaxaysa iyo in axmed gurey qoon kale inay degaan iyo kalifin annaga carfiin iyo uma noo qarsoon oon ku dagaalnaa jira oo idin adinku aqoon uma adeegsan karno waa masaakiin qawaarish iyo gaalo waaweyn u adeegsanaa maa kuwaan uga qoro inuu adeegsano allihiin alla hadday dagaalka naga daaya war naga daaya dagaalka war naga jooga warreer ayaalow jooga war mareexaanow joog war badan baa kuwa dhalateen war waa wiilii abtigii gabdhaha naga laynina oo ilmaha naga jalinina oo qabalaha naga gubinina oo baraagaha duuginina oo hana salkicinina war dagaalka naga joojiya labadiina qolo aakhire ilaahay naar buu idinkugu talagalay adduunkana wanaag idinma yaal hadday islaamtiin oo ashaataan oo cad xalaal idinka baxay labadiina naga joojiya dagaalka inta anugu aan garsaday maxaa siyaa barra ku gaarsaday askari baana ah waligoodna waa dagaali jireen malaha laakiin dadbaa kale ma dhicin waa isdhaleen qolo kale isma guursato qolo kale isma rabaan qof walba wuxuu aaminsan waa ayaga allihiin war dagaalka naga daaya dagaalka dhulka inay idinla gooyin oo cirkiisa waa ka idiin diidaya uusan harac idinkugu darin naga daaya dagaalka waxaa ka dhalan karaa dhul inaan anaguna aan balaayo adeegsano oon ilaahay inta u dacweyno aan habaarno oon dhulka la goyno taasaa ka dhalan doonta waxaan awood u leenahay ilaahay agteena waxbaa noo yaal adduunka umanaysa adigu aqoon baa noo jooga haddaan adeegsanana ilmana hari maayaan geedana hari maayaan oo mir aadaan meesha intaas dhaqdaraa nugu jirta maquuro hooyaday waa naag gabar reer dara oo reer cabdulla alla magana aabbahay waa nin reer ayaanla oo reer wehel dheera midkaana wax ugu tari maaya maanta waxna uguma aalo abtigay baa la dilay abtigay baa la dilay habartay baa la uleeyey hooyaday baa la garbaashay walaashay baa lacay war dhina iima fayo allihiin hadduu leeyahay joojiya dagaalka war gurigiin baa joojiya dagaalka oo bacdi ay waa hoogteen ummadda waa ka harteen dagaalka joojiya wallaahi billaahi tallahi yoonka maanta waa qamiisteeda ka hor haddaan maqli waayo waa heshiiyeen
haddaan qolo kala degin magoog layma yidhaahdo inta aad degtaan haddaan qoom kala degin magoogba layma yidhaahdo joojiya dagaalka gurmadka joojiya waxay u geysan karaan kulligoodba waa la weya xasharaad kale ceeshay ka cabayaan waa wada walanayaan maryahay dhiganayaan buuray ku furayaan waa ka xoog badan meel kasta meel cod ii jiifaa weli siima dayn soo maqli maysid gudaha shaabaan uga kiciyey haddaa la joogaa waree jooga waralihi allamey wala shahaata warmaweydna islaan hayn warmaweydna aqoon hayn waraawa culimmadiini iyo aqoonyahankiini iyo waasyadiini iyo dadkiini meeye war soo muslim mahayd masaajidada lagu tukado waxba kama jiraan war kagaxa fadhiga war ummaddan kala ceshada war adinku kala jooga war adinku war iswarsada adinka isdilay iswarsade war maxaan isku dilayna dhaha niman aqoon lahayn baa ku jira waa wada ehlunaar dhaawaca oo gudcool yaalla ilaa waraysin kan caabud la geeyey ama alamar yaalla ilaa waraysin hasiigooda kan kale iyo basiibaa ku noqota xabaday ku rideen weligay dagaal qabiil kama qayb gelin weligay oo cunno kuma taageerin xataa qofka ku dhinta oo diyo kuma bixin oo gargar kuma bixin oo ka qayb geli maayo wallahi waa magacay waa muslim war culimmada nimanka sheegta oo diinta xabaarsanow ama ka haajira ama ku baxa inay ka haajiraan iyo inay ku baxaan labada mid ha yeelaan alloodu aliyayaa ka kaca fadhiga ugaashada fadhiga ha ka kacaan oo waxgaradka fadhiga ha ka kaco aanu qoolama hadlina kulligoodaan la hadlay waxaan ugu baaqayaa ugaashada nabadoonnada samadoonnada aqoon-yahanka xildhibaanada madaxda galmudug yay xakumayaan war wallaahi bilaahi talla xabadda haraa ka socota ninkaan ka gurman oo ka dhiidhin oo kala dhicin inuusan galguyo xukun ka qabanayn waxaa weye waxa ku farxaya shaydaan iyo ehlunaar iyo nin shabaabaa ku farxi kara dagaalkaas ninkii aan ka qayb gelin oo ehbin oon adimada la gelin culimmadu ama ha ka haajirto aqoonyahanku ha ka haajiro dowladdu ha ka haajirto ugaasadu inta tagaan maryaha iska furaan ilaahay ha u baryaano dowladda dhexaa haddii wax ka dhaqan yihiin dowlad anu maqli mayne haddii wax ka dhaqan yihiin oo wax gartaan ciidan hawl keenta ummadda ha kala celiso muuqaalka ayaana meel kasta ha la gaarsiiyo ina islaam wixii ha la gaarsiiyo wixii galguduud dhashan ha la gaarsiiyo gobolada ha la gaarsiiyo ha la sheergareeyo